qoomiyadda Amxaaradu waxay ku doodaysaa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Masar ay qayb ka yihiin dagaalka ka socda dalka Itoobiya dhinaca kalena ay dabada ka riixayaan fallaagada TPLF. burburka iyo sidoo kale in ciidanka Itoobiya ay iska celin waayaan fallaagada TPLF waxay daliil u tahay in ciidanka Itoobiya la yaqaanay uu burburay dhinaca kalena ciidanku uu kala shaki soo dhex galay taa macnaheeduna waxa weeye in Itoobiya xilligan TPLF aysan hor istaagi karin. salaamullaahi calaykum daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada falanqayn cusub oo aanu ku samayn doono dagaalada harakeeyay waqooyiga Itoobiya u dhaxaya jabhadda TPLF iyo dowladda Itoobiya. qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo beenisay qabsashada magaalada Waldiya, dagaala aan la kala food qaadin oo ka soconaya magaalada Lalbela iyo Amxaarada oo ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka dambeeyo kooxaha TPLF iyo Masar oo dabada ka riixaysa. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena, waxaana dhankayga midig fadhiya saaxiibkay daacad ku soo dhawow. waan dhawahay saaxiib. daacado xaggee la kala marahayaa TPLF oo xarkaha soo goosatay baa la sheegahayaa, dowladda federaalka si toda u aastay baa la sheegaya oo tiri ma garanaysaa godadkii khiyaamada ay TPLF ay qodaysay ayay ku dhacday iyadii oo cirkiina waan ka weeraraynaa dhulkiina waanu kaga adkaana bay dheheen. marka bal arrintaas ku soo dhawow. aad baad u mahadsan tahay saaxiibkay Axmed Faragod. dagaallo lagu hoobtay oo 6 maalmood ee u dambeeyay ka socday guud ahaan dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada Amxaarada iyo Canfarta xuduudda ay la leeyihiin gobolka Tigreega, ayaa la sheegayaa in halkaasi uu ka dhacay khasaare iskugu jira naf iyo maal. dhinaca kalena labada dhinacba uu soo kala gaadhay dhibaato aad u xoogan, iyadoo sidoo kale wararka hordhaca ay sheegayaan in qoomiyadda Canfarta dhulkaasi uu dhibaato ka soo gaadhay, shacabka aagaasna lagu xasuuqay, sidoo kalena TPLF ay dhulka qabadsiisay deegaanadii iyo tuulooyinkii halkaasi ku yaalay. dhinaca kale dagaal TPLF ay soo qaaday oo ka soo bilowday magaalada Alamata ayna ku qabsatay magaalada Qobo iyo sidoo kale magaalada Qoborobit ayay xalay sheegtay in ay kula wareegtay magaalada Waldiya ee gobolka Wallo ee deegaanka Amxaarada. ilaa saakana waxaa soo baxayay xogaa arrintaasi la xidhiidha, halka xalay deegaanka Amxaarada iyo maamulka magaalada Waldiyaba magaaladaasi ay ku soo rageen bandow. dhinaca kalena ay sheegeen in aysan baabuurta iyo baabuurta gurmadka degdega iyo ciidamada militariga mooyaane aysan baabuur kala shaqayn karin, balse warbaahinta sidoo kale Al Jazeera waxay sheegtay qabsashada magaalada Waldiya inay tahay xaqiiqo ayna ku jirto gacanta TPLF. oo ugu dambeyntii dowladda federaalka Itoobiya oo hadda war-saxaafadeed soo saartay waxay sheegtay in Waldiya ay ku jirto gacantooda. dhinaca kalena shacabka magaaladaasi ciidamada militariga iyo ciidamada maleeshiyaadka deegaanka Amxaarada ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee dhulkaasi ay kaga saari lahaayeen fallaagada TPLF. dhinaca TPLFna afhayeenka u hadlay Getachew Reda waxa uu sheegay in aysan magaalada Waldiya gacanta ku dhigin, balse ay u jiraan wax ka yar dhowr kilomitir ayna qabsan doonaan saacadaha soo socda, asagoo sheegay in aysan wax shaki ah ka qabin qabsashada magaaladaasi iyo inay ka gacan sarreeyaan ciidamada Itoobiya halkaasi ku sugan. magaalada Waldiya guud ahaan waxaa la sheegayaa shacabka ku dhaqan in ay ka barakaceen oo ay soo carareen dhinaca magaalada Dhasey. ardayda jaamacaddu shalay ayay iskaga baxeen, waxaana hadda magaalada gudaheeda ku sugan oo keliya ciidamada militariga, maleeshiyaadka Faano iyo sidoo kale ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka Amxaarada. magaalada xaaladeeduna waa xaalad qasan oo xilligan la saadaalin karin waxa ay ku dambeyn doonto. guud ahaan shacabka magaaladaasi wuu iskaga qaxay. sidaad ogeyd hadda ka hor TPLF markay qabsatay magaaladaasi 2021 waxaa u sahlanaatay inay usoo gudubto deegaanada kale ee gobolka Amxaarada sida magaalada warshadaha badan ee Kombolcha iyo sidoo kale magaalada Dhasey. waxaa sidoo kale u sahlanaatay inay u dhaqaaqaan dhinaca magaalada Dhabrataabur oo u xigta caasimada gobolka Tigreega ee Bahardar. marka laga yimaado magaalada Waldiya iyo xaaladda ka taagan, warar hadda soo dhacaya waxay sheegayaan in dagaal qaatay 9 saac ee u dambeeyay oo u dhaxeeya ciidamada militariga Itoobiya iyo ciidanka liyu booliska deegaanka Amxaarada iyo Faano isku garab ah iyo TPLF oo dhinaca inuu ka socdo magaalada taariikhiga ee Lalibela, taasoo boqortooyinkii kala duwanaa ee Itoobiya gaar ahaan Amxaaradu ay ka cibaadeysan jireen. dhinaca kalena hay'adda UNESCO ay ugu register garaysan tahay ama ugu diiwaan gashan tahay inay tahay goob taariikhi caalami ah. goobtaasi waxaa la sheegay in dagaal lagu hoobtay uu ka dhacay, ciidamada Itoobiya ay adeegsanayaan ciidamada afantariga iyo sidoo kale ciidamada cirka. waxaa saaka goonaa isgaadhsiinta Batatanba meeshaasi xog laga hela aad bay u yarayd, balse dhinaca Tigreega xog laga helaya waxay sheegayaan inay ku gacan sarreeyaan magaaladaasi. inta
badanna ay soo jabiyeen fadhiisimihii ay lahaayeen ciidamada militariga Ethiopia ayna qabsadeen ciidankii abid ugu fara badnaa iyo hubkii abid ugu fara badnaa dhinaca kalena ay u soo dhaqaaqeen magaalada Lalibela dhinaceeda magaaladan Lalibela waxaa la sheegaa in ay tahay magaalo taariikhi ah saldhig weyn ciidamada militariga Ethiopia ay ku leeyihiin dhinaca kalena waxaa ku yaala garoon caalami ah oo ciidamada cirka Ethiopia ay leeyihiin waxaa kaloo ku yaala saldhigga ugu weyn ee ciidamada lugta ciidamada Ethiopia ku yaala magaaladaas marka qabsashada magaalada Lalibela xilligii TPLF 2021 markay qabsadeen maalmo yar oo kooban ayay haysteen sabab jira awgood oo ay ka mid ahayd in magaaladaasi dadka degan ay yihiin dad aad xagjir u ah Tigreegana aad uga soo horjeeda dhinaca kalena ay tahay magaalo haddii ciidamada Ethiopia laga qabsado aysan sii dagaalami karin isku soo duuduubo dagaalada ka socda dalka Ethiopia waxaad moodaa in ay maalinta ka dambaysa sii galahayaan xaalad aad u culus iyo sidoo kale halaag iyo xasuuq ay goobahaasi ka dhacayaan deegaanka Canfarta markaan u leexanana waxaa la sheegayaa in buuraha istiraatiijiga ee Zobil ay weli ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada TPLF iyo kuwa deegaanka Canfarta shacabka aagaasi ku sugan Canfartana waxaa la sheegayaa in dhibaato xoogan ay soo gaadhay oo ay ku baaba'een dagaalkaasi dhinaca kalena ay ku soo barakaceen iyadoo la sheegayaba in TPLF ay soo siqayso oo dhinaca kale ku soo socoto magaalada caasimadda ah ee gobolka Canfarta madaxweynaha Canfarta oo shacabkiisa la hadlayna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in shacabka Canfarta la badbaadiyo dhinaca kalena TPLF laga hortago oo haddii xilligan aan laga hortagin ay sabab u noqon karaan inay soo galaan gudaha deegaanka Canfarta dhinaca xuduudda dalka Eritrea iyo Tigreega waxaa la sheegayaa in siyaas afweerka ciidamo fara badan uu soo dhoobay deegaankaasi kuwaas oo aad u hubaysan dhinaca kalena wato baabuurta qafilan sidoo kale diyaaradaha helikabtarada iyo diyaaradaha qumaatiga u kaco ayaa la sheegayaa inay dul joogteynayaan xuduudda dowlad deegaanka Tigreega uu leeyahay dalka Eritrea ciidamada Eritreanka halkaasi ku suganna waxaa laga cabsi qabaa saacad kasta in uu halkaasi dagaal ka qarxo deegaanka Ageero oo ah magaalada Shareero dusheeda ayay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea Tigreegu dhinacaasi in ay furin kaga furnaato ayay ka cabsanayaan wayna u diyaar garoobeen sida la sheegay iyaguna waxay ku baaqayaan in dagaalku uusan xal lahayn shacabka Eritreankana arintaasi ay ka fiirsadaan oo aysan ku soo degdegin weerar ay ku soo qaadaan dhinaca dalka Ethiopia dhinaca dowlad deegaanka Oromia waxaa la sheegayaa in asagana dagaal ka socdaan xaaladuna ay aad u qasan tahay Jimhadda Xoreynta Oromia waxay sheegtay in deegaanka Beefto deegaanada Bishoftu ku hareeraysan gobolka Wallaga iyo gobolka Shawaba inay ku burburiyeen ciidamada militariga Ethiopia dhinaca kalena maxaabiis fara badan oo Ethiopian ay sii daayeen iyagoo la sheegaya dagaalada u dhaxeeya Jimhadda Xoreynta Oromia iyo ciidanka militariga Ethiopia maalmihii u dambeeyeen ay soo badanayeen daacada waxaad la socotaa in ra-iisul wasaarihii dalka Ethiopia uu ku maqan yahay dalkaasi Algeria uu muddo safar uu ku qaadanayo dalkaasi Algeria iyadoo dagaaladii ugu badnaa ay ka socdaan waqooyiga Ethiopia oo jabhadda TPLF-na ay dagaalo xoogan ay ku hayso ciidamada dawladda marka muxuu aaday baa la dhihi karaa oo dalkaasi uu ka doonay maxaase dagaalka ma laga yaabaa inuu isbedelo ciidamadu ay moraal jabaan maxaa laga falanqeynaya dhanka siyaasiyiinta sida aad og tahay Axmedow ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed xilli 6 maalmood u dambeeyay guud ahaan dalka Ethiopia uu ka socdo dagaal ahli oo lagu halaagsamay dhinaca kalena TPLF ay qabsanayso deegaano fara badan oo ka tirsan deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale deegaanka Canfarta ra'iisul wasaaraha Ethiopia xalay waxa uu ka baxay magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi waxa uu ka degay galbeedka Afrika gaar ahaan dalka Algeria isagoo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dalkaasi muuqaalo saaka laga soo qaadayna waxa la arkayay isagoo halkaasi lagu soo dhaweynaya dhinaca kalena la kulmahaya madaxda kala duwan ee dalkaasi socdaalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ilaa iyo hadda ma jirto cadayn rasmi oo ku aadan sababta uu u baxay iyo waxa uu halkaasi ka doonay halka falanqeeyaasha qaar ay ku doodayaan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu wadanka iskaga baxay dhinaca kalena uu nabadgelyo weydiistay wadanka hadda uu degay ee Algeria meesha qaar kalena ay ku doodayaan in halkaasi uu u tagay in uu ka soo helo kaalmo military iyo garab istaag si uu iskaga celiyo falaagada TPLF dhinaca kalena waxaa la sheegayaa in halkaasi uu tagay in la wada hadalsiiyo ama waan la kala dhex dhigo isaga iyo falaagada TPLF oo madaxweynaha dalka Algeria arintaasi uu istaago iyadoo dadka qaarna ay sheegayaan in arintani ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu ku tagay halkaasi aysan bataatan ba arrimahan dagaalka iyo TPLF aysan la xidhiidhin uu ahaa safar qorshaysna oo halkaasi uu ku tagi lahaa dhinaca kalena uu doonayay in wadankaasi markuu madaxweynaha wadankaasi ka helay ballanqaad rasmi ama casuumaad rasmi ah inuu halkaasi tagay isku soo
duuduubo warbaahinta dalka Ethiopia waxay si weyn uga gaabsatay socdaalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku tagay dalka Algeria iyo dhinaca kale qorshaha uu halkaasi ka maagan yahay wafdiga raacday aad ayay u koobnaayeen waxaana kaliya la arkayay xaaskiisa ama islaantiisa oo kaliya oo la socota warbaahinta dawladana ma aysan raacin oo muuqaalo wadankaasi uu soo gudbiyay unbay soo gelinayaan warbaahinta dalka Ethiopia marka ilaa iyo hadda ma cadda qorshaha ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu u tagay galbeedka Afrika balse waxa ku gadaaman arrimo fara badan oo la xiriira socdaalkiisa halkaasi iyo dagaalka ka socda waqooyiga halka dadka qaar ba ay ku doodayaan ama dadka Ethiopia siyaasadeeda la socda ay ku doodayaan in TPLF iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay isog yihiin dhinaca kalena ay heshiis ku yihiin in TPLF ay soo weerarto gobolka Amxaarada maadaama Amxaaradu ay diiday heshiis lala gal TPLF dhinaca kalena ay gacanta ku hayaan gobolka Omara iyo sidoo kale gobolka Walqayd oo ah gobol beeraha caan ku ah Tigreeguna ay wax ka soo saaran jireen nabadda Ethiopia muddada la raadinayeen inay diiday qoomiyadda Amxaarada sida awgeed in Tigreegu ay qabsan doonaan magaalooyinka Dhasay Kombolcha iyo sidoo kale magaalada Waldiya iyo goobo kale oo ka tirsan deegaanka Amxaarada inta kadibna in qoomiyadda Amxaarada sanka lagaga tolo inay ogolaato in wada hadal lala gala TPLF dhinaca kalena ay iskaga baxaan guud ahaanba gobolada ay gacanta ku hayso arrintaani waxaa la sheegayaa in ay ka dambayso dawladda Mareykanka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka Abiy Ahmedna uu gacanta ka taagtay qoomiyadda Amxaarada iyo madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasa Fawerki oo la sheegayay in ay heshiis ku yihiin dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia iyo TPLF aan abidkoodba la leeshin isku soo duuduubo socdaalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia xilligan ma jirto wax dhambaala oo rasmi ah oo cad oo ka soo baxaya marka laga yimaado tuhunno iyo in qof walba meesha uu jecel yahay uu burka ku dhufto iyadoo lagu salaynayo xaaladda ka taagan gudaha dalka Ethiopia daacadow su'aasha ugu dambeysay aan ku weydiinayna waxaa weeye in xagjirka Amxaarada ama ay sheegayaan oo ay ku eedeynayaan dawladda Soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in dhawaan markuu safarka ku tagay magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar inuu heshiis la soo galay Masar saddex geesooda oo TPLF saraakiil ay uga qayb galeen la damacsan yahay in weerarkan ay qaado nimanka la yiraahdo TPLFna saldhig la siiyo arrintaas ay kala dhamaysay dawladda Masar marka waxay ku eedeynayaan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud sida xogaha lagu helayo in ma garanaysaa dagaalkan uu ka dambeeyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo dawladda Soomaaliya arrinta maxaa ka jirta Axmedow aad baad u mahadsan tahay sida ay faafinayaan YouTube-leyda iyo warbaahinta qoomiyadda Amxaarada iyo sidoo kale shakhsiyaadka activistayaasha ama inta badan sumadda ku dhexle qoomiyadda Amxaarada waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qayb ka yahay dagaalka ay soo qaadeen TPLF dhinaca kalena uu doonayo burburinta dalka Ethiopia waxyaalaha ay sida gaarka afka ugu dhufanayaan waxaa ka mid ah in madaxweyne Xasan Sheekh uu isticmaalayo fikradihii iyo aragtidii Siyaad Barre oo uu qayb ka yahay burburinta iyo sidoo kale in wadanka Ethiopia la kala diro Tigreegana uu garab iyo gaashaanba u yahay arrimaha sida gaarka ay u xusayaan waxaa ka mid ah booqashadii madaxweynaha uu ku tagay dalka Masar inay ahayd booqasho la qorsheeyay taas oo Masar Soomaaliya iyo Tigreegaba ay ka wada socdeen dhinaca kalena la doonayo in Tigreega la siiyo saldhig ay ku yeeshaan gudaha dalka Soomaaliya dhinaca bari ee dalka Ethiopia laga soo burburiyo waxyaalaha sida gaarka ay u sheegayaan waxaa ka mid ah in ciidamada la sheegay maalmihii u dambeeyay Masar ee imaan doona gudaha dalka Soomaaliya ay qayb ka noqon doonaan in Tigreega ay ciidamo u tababaraan dhinaca kalena ay burburinta Ethiopia qayb ka qaataan waxyaabaha kale ay sheegayaan waxaa ka mid ah in ay yiraahdeenba Tigreega ama iyo Soomaalida iyo sidoo kale dalka Masar waxa arrintaas heshiis kula ah oo qayb kala ah dalka Mareykanka iyagoo sheegay in Mareykanku ay ka go'an tahay burburinta dalka Ethiopia iyo sidoo kale Mareykanka sidoo ugu soo celin lahaa Tigreega awoodii ama xukunkii dalka Ethiopia ay muddadaba soo xukumayeen eedaymahan ay u soo jeedinayaan qoomiyadda Amxaaradu ma aha kuwo xilligan bilowday ama kuwo xilligan cusub oo xilli kasto Ethiopia dagaal uu ka qarxo ama sidan oo kale fallaagada TPLF iyo dawladda dagaal uga dhex qarxo arrimo lagu yaqaanay ayay ahayd inay yiraahdaan waxaana soo weeraray Siyaad Barre of Soomaaliya ama waxaana soo weerartay dawladda Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya waxay qayb ka tahay burburinta dalka Ethiopia eedaymahaas marka waxa lagu eedayn karaa nin tabar
beelay oo dhinac kasta dagaal kaga furmay balse doonayo in dhalinyaradiisa iyo qoomiyadda amxaarada uu ku kiciyo dagaalka lagula jiro xukuumadda Abiy Ahmed lagana hortago falaagada TPLF ee weerarka ku soo gudaha dalka Ethiopia taa baa la oran karaa qoomiyadda amxaaradu u sababaynaysa in arrintan la xidhiidha eedaynta dalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse ilaa iyo hadda ma jirto arrin rasmi oo cadeynaysa eedda ay soo jeedinayaan qoomiyadda Tigreega qoomiyadda amxaarada aan idhaahdee loo soo jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waan sa arkaynaa wixii ka soo baxo xogta dalka Soomaaliya ugu dambeyn daacadow waxaa socda dagaalo holaca oo ka socda waqooyigaasi Ethiopia dadka falanqeeya siyaasadda waxaa la sheegaya in dagaalkan uu daba dheeraan doono inkastoo la sheegayo nimankan TPLF inay badasheen ba qaab dagaalkii ama istiraatiijiyadii hore sanadii hore ay ku dagaalamayeen marka maxaad is leedahay markii aad barbarka ka fiiriso militariga iyo dhanka siyaasadda dagaalkan muu sii socon doonaa oo uu daba dheeraan doonaa mise wuxuu noqon doonaa dagaal daba go'an buu noqon doonaa Axmed aad baad u mahadsantahay dagaalkan Ethiopia marka la qiimeeyo siduu ku bilowday markii hore ciidamada Ethiopia ku sugnaa waqooyiga dalka Ethiopia TPLF way weerartay kadibna hubkii iyo saadkii bay kala wareegtay ciidanka Ethiopiana weerar bay ku qaadeen waxay qabsadeen magaalada Maqale markaan dib arrintaas ugu noqono TPLF dagaal bay soo qaaday waxay qabsatay magaalooyinkan Waldiya Dhese Kombolcha Lalibela iyo sidoo kale deegaano Dhabrataabur iyo deegaano kale oo ka tirsan deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta ugu dambeyn diyaaradaha Bayraktar TB2 uu hagaajiyay dalka Turkiga ayaana sababay in dib loo jabiyo TPLF dhinaca kale laga guuleysto 7 bilood bay ka maqnaayeen saaxadda dagaal ee dalka Ethiopia waxaana la sheegay inay tababaranayeen ciidamo fara badan dhinaca kale ay u diyaar garoobayeen dagaal ay la galaan dowladda Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed marka xagga laga yimaadana TPLF waxa haysato dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunno yaraan iyo sidoo kale inaysan haysanin waxyaabaha asaasiga sida isgaarsiinta caafimaadka waxbarashada iyo wax kasta oo deegaankaasi u lahaa sida bangiyada oo kale Ethiopia ay ka goysay in badan waxa la doonayay in labada dhinac la isu keeno oo la wada hadalsiiyo ama xal laga gaaro xaaladda qalafsan ee dalka Ethiopia markaynu soo noqono dagaalka Ethiopia markaan fiirino TPLF xilligan waa naflacaari meel dambe ay ku noqoto ama deegaan dambe ay ku joogsato malaha Abiy Ahmedna waxaad moodaa dagaalada ku furan dalkiisa iyo dhibaatada TPLF ay ku hayso inuu soo adkaysan doonin marka waxaad moodaa dagaalkan xilligan hadda Ethiopia ka bilowday in uu noqon doono mid aan istaagi doonin oo labada dhinac mid uu dhinac loo tuuri doono waliba waxay u badan tahay xukuumadda Abiy Ahmed marka hadda la fiiriyo dagaalka kaga furan Suudaan khilaafka u dhaxeeya Masar iyo Ethiopia jamhadaha Ethiopia ee Oromadu ay ka mid tahay dagaalka kula jiraan weerarada al-Shabaab ay ku soo qaaday dowladda deegaanka Soomaalida iyo TPLF oo dhinaceeda kaga soo dhufatay colaadahan u dhaxeeya Canfarta iyo Soomaalida Oromada iyo Soomaalida oo laga cabsi qabay in maalmahan iyagana isku dhuftaan xaaladda dalka Ethiopia guud marka la fiiriyo iyo calaaqaadka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu la leeyahay wadamada caalamka waxaad moodaa in dowladda Ethiopia sii jiri doonto aysan jiri doonin dhinaca kale ay TPLF ka guuleysan doonto Abiy Ahmed dhinaca TPLF markaan fiirinana waxaad moodaa iyaga laftigooda fursado fara badan ay ku guuleystaan in ay haystaan marka la fiiriyo dhalinyaradii faano ee amxaarada ee la dagaalami jirtay oo iyagu ka rajo go'ay dagaalka ay kula jireen Ethiopia dhinaca kalena lagu eedeeyay markay xabadu istaagtay in argagixisayeen isku soo duudubo xaalka Ethiopia waxa jaan goyn doono hadba sida TPLF soo socoto iyo wadamada reer galbeedka inta badan siyaasadda Ethiopia gacanta ku hayo sida u dhexdhexaadiyaan balse waxaad moodaa mustaqbalka Ethiopia xilligan inuu galay meel mugdi ah oo aysan ka soo bixi karin mahadsan tahay Master Daacad oo si fiican u falanqeynaya dagaalada ka holcahaya waqooyiga Ethiopia daawadayaal intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamida waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo